Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan ka hadli doonaa arrin bulshada ku badan, fikrad qaldanna laga haysto, una baahan in la saxo, waana isticmaalka daawooyinka appetite-ka iyadoo qofku xanuunsan yahay. Dadka soo gata daawooyinka appetite-ka iyagoo ka sheeganaya in cunnadu ay ka xiran tahay, waxay u badan yihiin dad qaba cudur u baahan in la daaweeyo, laakiin ma oga in xanuunka hayo uu sabab u yahay cunno xumada ay ka sheeganayaan, xalkuna uusan ahayn daawada cunnada lagu furo kaliya. Tusaale ahaan, qof caloosha caabuq ka qaba bakteeriyo ama gooryaan midku ahaadaba oo xal ka raadinayo daawada appetite-ka ayaa arkaysaa. Sidoo kale waalid haysta ilmo quuman qaba ama qufacaya oo daawo appetite u soo gadayo maadaama cunugii afka xirtay ayaad arkaysaa. Ogow, daawada cunnada lagu furo ee appetite-ka waxaa la isticmaalaa kaliya markuu qofku caafimaad qabo, wax xanuun ahna uusan dareemeynin, laakiin cuntada uun ay ka xiran tahay. Waxaa badanaa ciladan la isku arkaa markuu xanuunku soo maro, kadibna aad ka raysatid, laakiin kugu reebo cunno xumo, ama cimiladu isbedelaan ama laba biyood kugu dhaco. Sidaa awgeed waa qalad qof shubmayo ama matagayo ama calool majir qabo in daawo appetite kaliya la siiyo cunnadoo ka xiran darteed. Sidoo kale ilmo qandho hayso ama la laboonayo in daawo appetite kaliya loo soo gado iyadana sax ma ahan. Badanaana haddii xanuunadaas la daaweeyo, qofka appetite-ka si dabiici ah ayuu ugu soo laabtaa, umana baahdo in daawo appetite la siiyo. Fadlan faafi fariintan, waana mahadsantahay.